madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa baryahanba ku sugnaa qayb ka mid ah qaaradda Yurub isagoo markiisa horeba madaxweynaha uu soo gaarayay magaalada London iyadoo halkaasi shir lagu qabanayo dhammaanba dowladda federaalka ee Soomaaliya. madaxweynaha halkaas intuu ku sugnaa iyo waxa uu la kulmay jaaliyadda Soomaalida ee Puntland ee ku sugan magaalada London iyo weliba dalka UK. intaa kadibna madaxweynaha waxa uu safar ku soo aaday dalka magaalada Oslo ee dalka Norway. halkaasna waxa madaxweynaha kula kulmay isagoo weliba si wanaagsan loogu soo dhaweeyay jaaliyadda reer Oslo ama Norway ee iyagu degan dalkaasi. intaa markay maqleen jaaliyadaha kale iyagu Denmark iyo meelo badan oo dalka ka mid ah ayaa iyagu u dhaqaaqay dhankaasi si ay madaxweynaha ugu la qayb galaan soo dhaweynta iyo weliba xafladda loogu sameeyay magaalada Oslo. intaa kadib madaxweynaha waxa uu soo gudbay magaalada Sweden dalka Sweden ee magaalada Göteborg halkaasoo jaaliyadda reer Puntland iyo weliba Soomaalida ay iyagu ugu hortageen magaalada banaankeeda si ay madaxweynaha u tusaan una soo dhaweeyaan inuu yahay mudnaanta koowaad madaxweynaha la siinaya in uu wadankaasi wanaagsan ugu qayb qaatay horumarkiisa iyo wanaagga uu la rabo reer Puntland iyo Soomaalida kale. madaxweynaha intaa kadib waxaa loo soo galbiyay magaalada gudaheeda iyadoo waliba hooygii loogu talagalayna uu madaxweynaha laga dajiyay. waxaana la filayaa madaxweynaha hadduu ay baraale ka noqdaba inuu la kulmo jaaliyadda reer Puntland ee ku dhaqan magaalada Göteborg iyo weliba guud ahaan dalka Sweden. waxaa la filayaa oo kale jaaliyada iyaguna ka imaanaya qaybo kale oo ka mid ah qaaradda Yurub in ay ka qayb galaan soo dhaweynta madaxweynaha ee lagu sameeyaa magaalada Göteborg ee dalka Sweden. madaxweynaha mar lagu wareystay magaalada Oslo ee dalka Norway ayuu waxa uu sheegay inuu u tagi doono jaaliyadaha reer Puntland ee ku kala dhaqan qaaladaha Yurub weliba qaasatan waxa uu magacaabay dalka Sweden iyo Finland in uu gaari doono kulana kulmi doono jaaliyadda isagoo weliba ka dhaadhicin doono in ay ka qayb qaataan horumarka ka socda dalkooda hooyo ee Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan deegaanada Puntland oo aad arkaysaan baryahanba in ay ka socoto mashaariic xoog leh oo madaxweynuhu si wanaagsan ugu hagar baxayo ka qayb qaadashadeeda. waa anigu Axmed Wariye oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo. ربنا سيمك